maanta ayaa bulshada ku nool magaalada Ceelbeeg gobolka Sanaag ayaa mikrofoonka la dhex qaaday anigoo wax ka weydiinaya arrinta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood ee Somaliland ay duqoontahay ku hayso maamulka Somaliland oo dawladda sheeganayo aan dawlad ahayn ee maamul ah waxaanu idin leenahay ka baxa Laascaanood aad ku soo duusheen oo dadkii lahaa oo Ilaahay dejiyay iyadoo nin walba meel Ilaahay dejiyay Soomaali la wada yahay laakiin nin walba meel Ilaahay dejiyay aad ku soo duusheen haddaad islaam tihiin iskaga baxa Nuux Taani saaka waa maqlaayay waxa uu ku hadlaayay wuxuu yiri al-shabaab iyo Puntland baa ku soo duulay aanu ka saaraynaa beeriraad male kaadi baa tahay kelib ah dadkii dalka deganaa baa xasuuqaysa caruur xasuuqaysa dumar xasuuqaysa barihi dalka aad ku dagaalamaysid waad ku gubanaysaa adiguna haddaadan iskaga bixin la dulqaaday allihiin hadduu alla yahay ciidankiina qaata oo dadka dalkiisa uga kaca oo haddaad hadal rabtaan markaad ciidankiina qaadataan ciddii aad la hadlaysaan la hadla laakiinse idinkoo xabaddii ridaya oo saacaddaa haddeer aannu maqlayno oo ay dhacayso oo magaaladii aad baabi'inaysaan loo dulqaadan maayo ninkii bele doonaya isagaa bele hela qabrigaad qodaysaan hadda waxa ku dhacaya idinka qabri baa qodaysaan hawshaas waxaanu leenahay ha laga digtoonaado weli daba la qabtay leedahay daamankeedii tage laakiin waxaa la yidhi dadka waa la falaa waxaa lagu falaa walaalo u nadaa haddeer kelmaddayadaasu waa fal ka baxa meeshaa ka baxa waa wanada tuu kelmad caddu weeye hawshaasu waxay tegaysaa waa ognahay 3 habrood baa tihiin 3 habrood waa ku dhantihiin 3 ka dhigan waa ogtihiin 3 ka dhigan waa ogtihiin 3daas xabadaas isu geeylaysa oo waa naga dignin oo waa naga talo oo waa dan dadkana waxa ku jira nin shaydaan ama shiqiba baa horta dadka ku jira ismana oga laakiin dadka og Ilaahayna waa og yahay waxaanu leenahay ninka la leeyahay Muuse bixi lagu sheegayo adduunka waxaad moodaa inaanu cidhib ku lahayn dadna lahayn dadka waxa ninkaas ku samaynayo kala baxo oo dadkiisa kala baxo oo haddaanu kala bixin adduuniya aakhiraba waa u daran tahay waa eedaya labadaba waa eedaya baanu leenahay waxaanu leenahay labadaba waa eedaya dadkiisa kala baxo gardaraan laguma guulaysto dilna wiil kuma dhashay wiil baa ku dhintay baa la yiri isagoo haddii wiil ka dhiman maayo inaanu dad lahayn buu iigu muuqdo aniga oo goblan yahay hadduu dad leeyahay horna war ku waagayay ka dhiman waxaanu markaa ku baaqaynaa dadkaaga kaxayso oo haddaadan kaxaysanayn dadka kaloo maqlayo war dadkiina ka daasta dil baa ku wadaan ka daasta oo ilaashada dadkiina oo kana dilaysaan adduuniya aakhirada waa ku eedaysaan waxaan la hadlaynaa ninka la yiraahdo Muuse Biixi waxaanu leenahay oo madaxweynaha lagu sheegay waxaanu leenahay madaxweyne ma ihid muslimna ma aadihid labada midna ma aadihid waxaanu ku leenahay dalka aad ku duushay oo maatada iyo maalka iyo masaakiinta aad ku xansuuqaysid u dulqaadan mayno waxa ka daran baa kaaga iman doona waxaanu leenahay wixii hadhay oo hadda nafi ku jirto ka dulqaado ciidankaaga oo ka bax Laascaanood waa baaq haddii aadan yeelin oo hadalka aan naga soo baxaya aadan qaadan wixii ka dambayn doona annagana lama weydiiyo dhibaato waxba kuma kordhaan rag dil wax kuma xasilaan
هلا بدلو كارtada hadda soconaysa baanu leenahay koowaad mar labaad mar saddexaad intaba waxaan leenahay dagaalka laascaanood dhibaato geysanaya halla bedelo xabada halla bedelo ha laga dulqaado duqeynta caruurtu ku dhimanayso maatadu ku dhimanayso abyaanku ku dhimanayo dhalinku ku dhimanayo macallinka iyo dhakhtarku ku dhimanayaan halla bedelo taa wax kuma barakoobaan halna laguma gaadho halla joojiyo saaq ka hadlayno oo waxa weeyaan reer ka hadlayno waxaanu ka hadlaynaa waa dad shaar gashan oo giim ah la ciyaarayo adeegsanayo dadka giimka waxaan leeyahay araduunkana waxa weeyaan ninkaasi awalba deex weeyaan nin baa kugu shaqaysanayo saaqad maad qaadan wax yar $80 soo gaadhay baa qaadanaysa hadda tii weyn aakhirada weyn cadaab ha shaqaysan ummadda Soomaaliyeedna ama beesha caalamka waxa la socod ka dhacayo way arkaan haddii hadal wuxuu ku qaadan waayo gacan baa la soo tagayaa qofkuna dumada madaxdayga ee gidaarka uu soo taabtaa musabiixi madaxdayga waxa soo dhamaaday baan leeyahay barnaamijyo deesaaq ama qaran baatiin ama qabiil baatiin ama qoomiyad baatiin dadkiina waa la dhabeelkaana dadka ka qabsada haddii uu dani waa la ku dhawaaqo kaxaynaya jarbaan ka tuurayana inaad jari ka dhacdid ma hood amarkiisa qaatid ana ka hadlaynaa bini aadanimada waxa ka soo horjeeda islaamka ilaahay lagu la macaamilayo waxaanu ka xanuunahay xansuuqa ka jira meesha la yiraahdo ascaanood dadka muslimka oo la xansuuqayo maatada la xansuuqayo guriyaha la duminayo dhaqaale dumiska lagu sameeynayo waxa bini aadanimada ka xun oo islaamnimada aan shaqo ku lahayn oo laga sameeynayo ayaan ka xunahay waxaan codsanaynaa wixii islaam ummadda nabi maxamed oo muslimi inay uga gurmadaan ilaahay dartii uga gurmadaan diinta waxaan kala oo ka codsanaynaa dadka ayagoo maal leh la cayreynayo oo nasabadooda la garaacayo oo maxaan ku raadayay la leynayo oo hobiya iyo waxaan muslimka loogu talagalin iyo xabashiya gaalo loogu talagalin la garaacayo yaa waxaanu leenahay ha laga xanuunsado Soomaali haday yihiin ha laga xanuunsado hadaan Soomaali ahayna la bareedo hadaan Soomaali ahayna ha la bareedo nin kasta oo dacalkooda jooga nin kasta oo maxaan ku raadayay arkaya waxa weeye xuquuq baa ka saaran sharciga islaamka xuquuq baa ka saaran waxaan leeyahay Muuse Biixi مسؤولية معها إن أدتك حنسوق ده مسؤولية معها إن أدلك جبتها مسؤولية معها إن علماء ليس مسؤولية معها إن العرور حنسوق ده مسؤولية معها ومولها إن الضوء ده مسؤولية معها دي لها إذا كردقوا وحن كوشي جيا ويسبدل يا دنيا ويسبدل يسه تيكل شالبا وكانوا لي هيدول بهانته تيكل شالبا reer miyiga lagu dhiitinayay kaarayaasha la dul marinayay waa kal nool yahay waxaan leeyahay reerisasi waa idin ducaynaynaa garabkiinaanu taaganahay muruq iyo maalna waa idin la hiiliyoona waa idin la barbar taaganahay waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag.